haweeney garoob ayaa waxa uu joogtay gabar yar oo aad u qurux badan. Rag badan ayaana ka soo doontay gabadheeda, laakiin waxay shuruud uga dhigtay in meherkeeda ka dhigaan $5,000. Lacagtaasu aad ugu badneed, cid ku dhiiratana waa la waayey gabadhaasi maadaama go'aanka maamada dhashay uu ahaa mid aad u adag. Wiil ayaa markii dambe aad u jeclaaday gabadha, intuu dadaali kara ayuuna dadaalay, wuxuuna soo aruuriyey lacag gaaraysa $3,000. Aabbihii ayuuna u sheegay in gabadhaasi uu doonayo. Wuxuu kale u sheegay shuruudaha hooyadeed inay tahay in $5,000 ka yar aanan gabadheeda meher looga dhigayn. Aabbihii ayaa wuxuu ku yidhi wiilkiisa, dhib ma lahan wiilkaygiioo keen intaad haysid. Wiilkii ayaa ku celiyay, laakiin aabe, maamadaasi aniga kaaga aqoon badan, $5,000 ka yar ma aqbalayso. Aabbihii ayaa haddana ku yidhi, adiga wiilkaygiioo keen intaad haysid, rabbi ayaa noo fududayn doonee, na keen aana kuu doona gabadhaasi aad jeclaatay. Waxay tageen gurigii ay gabadha ka doonan lahaayeen. Iswareysi kadib, aabbihii waxa uu sheegay maamadii garoobka ahayd inuu gabadheeda wiilkiisa u soo doonay, wuxuuna ku wargeliyey in meherkeeda $1,000 uu ka dhigayo. Maamadii ayaa isla markiiba hadalka dhexda ka soo gashay oo tiri, war maxaad sheegtay $1,000 ah? Aabbihii baa hadalka qaata oo yidhi, ha iga dhexgelin warka walaalo, $1,000 kalena waa adiga meherkaaga, waayo aniga ayaa ku doonaya, waxaana rabaa inaan ku guursado. Maamadii ayaa inta dhoosha dambe ka qosashay tiri, rabbi ha isku keen barakeeyo, waan ogolahay wax weliba. Markii deriska weydiiyeen maamada sababtay uga tanaasushay go'aankeedii adkaa ee lacagta badan ku doonaysay in gabadheeda lagu mehersado, ayaa waxay tiri, badeecadu marka jumle iyo tafaariikh lagu kala iibsanayo isku qiimo maaha ee taasi ogaada. Wiilkii ayaa dhankiisa aabihiis $1,000 ee soo haray weydiiyey, aabe aaway $1,000 ayuu yidhi. Hase haatee odayga oo mid caqli badan ayaa ku yidhi, hooyada oo maseertay ayaan doonayaa in iyana maseertir uga dhigo $1,000. Sheekadan ayaana mid cajiiba, aad u xiiso badan, dad badanna aad u soo jiidatay. Waxaan idinla socodsiinaya wariyaha arrimaha bulshada Gacal Ayman. Si sheekooyin iyo dhacdooyin kale aad u xiiso badan aad u heshaana, sabskraib saar janalkan YouTube-ka ku leeyahay ee Gacal Ayman.